Soomaaliyeed qof walbo damiir la waxaan ka codsanaynaa inuu muuqaalka sheer gareeyo walaal hadda muslim tahay oo aad damqanayso damiir leedahay muuqaalka sheer gareey waa aabba Soomaaliyeed oo dhibaataysan waad arkaysaa sariirta ayuu saaran yahay xaaladiisa way adag tahay ma hadli karo ma socon karo wax ma cuni karo wax ma cabi karo qoyskan dhibaato ayaa haysato walaalayaal muuqaalka hala sheer gareeyo walaalayaal Ilaahay dartiis u sheer gareey walaal soo caabi oo Ilaahay ka baq waxaan codsanayna si Ilaahay dartiisa inaad ku soo caawiso doonta ayuu nabar kaga yaalaa sida la sheegayo xaaladiisa aad bay u adag tahay waxaan rajaynayaa qof walbo damqanayo oo damiir leh inuu sheer gareyn doono waxaan rajaynayaa qof walbo damiir leh oo damqanayo inuu caawinta ka qayb qaadan doono waxaan rajaynayaa qof walbo damiir leh inuu saaxiibadiis gaarsiin doono walaalayaal Ilaahay ka baqa hadaad caawin karin xitaa muuqaalka u sheer gareey arkaysaan waa aabba Soomaaliyeed oo dhibaataysan sariir saaran xanuunsan isla markaana garab aan haysan qof walba waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka sheer gareyso inaad soo caawiso wax walba ku caawin kartina ku caawiso maanta waa adduunyo bari waa aakhiro ifka walaal lagu yahay adduunkan waa laga tagaa qof walba waxa wanaagsan waxa uu baxsanaa inuu u baxsado si Ilaahay dartiis ah waxa marka aad Ilaahay dartiis aad u baxsato ayaad ka liibaanaysaa waa dareemi kartaan aabba maanta xanuunka haystay dhibaatada haysato oo sariirta saartay haduu hanti ama lacag uu lahaan lahaa halka ma soo istaagi leen waxa halkan soo istaajiyay waa danta iyo daruurta iyo dhibaatada iyo xanuunka haysto waxa jira dad badan oo hantiilayaal ahaayeen waa aragtay maanta adduunka way ka tageen hantidoodiina way ka tageen aakhirey jiraan waxa anfacay dadkaasi waa in sadaqa loo bixiyaa dadka sidaan u dhibaataysan la garab istaaga la caawiya hantidii ay ka tageen walaalahooda dhibaataysan lagu caawiya loo sadaqeeya wax walba loogu qaban karo wanaag ah in lagu qabto in Ilaahay laga baqo oo la soo xasuuso maalinta qiyaamo adduunkan waa laga tagaa walaalkaaga maanta uu ku baahan yahay maanta inaad garab sii karto inaad caawin karto qof walba wixii uu ku saacidi karo inuu ku saacido dhammaan shacabka ganacsatada bulshada qaybadeeda kala duwan mas'uuliyiinta dalka madaxweynaha qof walba maanta awood u leh inuu soo caawiyo waayo maxaa yeelay qof walba maalintiisa soo maray adduunka waa imtixaan waa lusku imtixaanaya waa dareemaysaan wax walban waxa la rabaa in loo dulqaato aabba maanta xanuunka sariirta soo saar waa dareemi kartaa aabbahan maanta sida uu u xanuunsan yahay waa dareemi kartaa walaal waxaan ka codsanaynaa inaad la xanuunsato inaad ka xanuunsato inaad soo garab istaagto inaad waxa aad ku tari karta aad ku tarto inaad la soo xiriirto lambarka shaashada saaran qof walban waxaan ka codsanaynaa oo damiir leh hadaad damiir leedahay muuqaalka sheer gareeya leenahay waxaan leenahay inuu noqdo muuqaalka ugu sheerta badan la soo dhawo walaalayaal qofkan waa qof walaalkayga waxaa laga keenay baadiyo muddo wuxuu taagan yahay oo ii jooga hal isbuuca markuu imaanay ma soconeenin wax ma cuneenin wax ma cabaynin ilaa hadeertaan waxaan dhahay sida waa ku fiicnaa doonaa ilaa hadeertaan waxaan sii arkay inuu sii dhacayo oo aad u sii xanuunsanayo xanuunkiisa wuxuu ka badan yahay dhuunta aad iyo aad ugu xanuunsan yahay dhuunta wax kama cuni karo waxna kama cabi karo waxna mana ka hadli karo asiga 35 sano 35 jir waaye sidaan wax ka dhiga xanuunkan dhuunta nabarka ah waaye marka walaalahayga Soomaaliyeed waxaan jeclahay ninkan inay soo caawiyaan ma ka caruur u joogto asiga wax caruuray ma dhalin xaasna ma aroosin waxaan caruurna ma dhalin xanuunka ma xasanuu la jiifo xanuunkan inta uu la jiifo 10 sano camal waa wuu ku socday ilaa sano xanuunkiisa xanuun bukaan ku socdo ku ahaa ilaa hadeertaan uu aad u soo dhacay asiga wuu noo imaajiri hadan wuu naga tagay jiray saas ay taa wuu ku fiicnaa daawooyin caadi oo
qalajiyo meelaha uu ka soo gato iska isticmaali jiray wax isbitaal lama geynin awood oo isbitaal hadirtaan lagu geeyana ma walahaayabo isbitaalka hadda uu u baahan yahay waa isbitaal weyn isbitaalkaas weyn lacag uu u baahan yahay anaga wax awood aan hadirtaan u hayno oo ku tareena aan dheheyna ma lahan waxaan jeclahay walaalahayga Soomaaliyeed ninkan inay soo caawiyaan si degdeg ah inay igu soo caawiyaan lambar waa leenahay ما خوا fura 258 78 ebershan furaha 258 78 ebershan xanuunkan oo haayo habeenkii oo kaleente ma hurda ma lahan habeenkii marna waa fadhiisana marna waa la soo fadhiisana waxaan la dhinacyo ka xanooginay xoogaa fadhiiso marna waa la seexina ma fadhi karabo waxna ma cuno karo waxna ma caabi karo caanahaas bis uu ku noolyahay oo baraxa ah ana wiilkan waa dumaashigay odiga aan eel ashtay oo iqawla dhashay waadiyaa laga keenay marka odigii waalidkiis ma jooga wax waalid ma joogo waalidii hore u dhamaadeenba hooyada waa dhintay aabihiina wuu dhintay marka walaalihii is haysteen waa tahay daawada waa dareemi kartaa in dhibaatada haysato qoyskan iyo soo kala caawinaada ay u baahan yihiin qof walba waxaan ka codsanaynaa inuu soo caawiyo uu soo garab istaago lambarkana shaashada la soo saaraa walaalkaaga dhibaataysan oo garabkaaga baahan waxaa loo baahan yahay inaad garab sii karto waxaan rajaynayaa dhammaantiinba inaad share garaysa insha Allah Dr. Samir Maxamed oo ah doctorka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka daweynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan hadda waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooska dabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daaweynayso cudurrada maqaarka iyadoo doctorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin